wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mira Maxamed oo weheliyo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaraddaasi ayaa kaga qayb galay garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama koob ay soo agaasintay wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal oo u qabatay ciyaartooyga heerka labaad ama loo yaqaan Sirobida kaasi oo ka socday in muddo waxa ciyaartani lagu soo gabagabeynayay wareegga saddex dhamaadka oo si habsamiye gabi ahaanba u soo gabagaboobay ugu horeyn waxa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mira Maxamed warbixin kooban ka siiyay koobkani ka socda garoonka Xaaji Daahir Stadium ee magaalada Boorama iyo kooxihii ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal mudane Xasan Saciid Guureed Xasan Saciid Dhedheel waxaanu yiri saacadul wasiir ku soo dhawo gobolka Awdal waxa maaragtay koobkan aan ku bilownay oo aan soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa aan jaaj gareynay oo aan maaragtay awoodda saaray dhalinyarada koobka ka soo qayb gashay oo aan maanta u qabanay koob Serie B oo ka kooban 30 kooxood oo Serie B oo maraya wareegii saddexaad kooxdii ugu dambeysayna ay maanta ciyaarayso geesiisa waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda ciyaaraha fudud Maxamed Nuur Jibriil waxaanu yiri waxa farxad maanta noo ah inaanu ka soo qayb galno tartankan oo wasiirku garwadeenu yahay sidii loo indhayn lahaa ciyaaraha ka socda Boorama ma gobolka Awdalba kooxahan Serie B ee 30 oo la kala eegay mihnadooda ciyaarood halkay taagan tahay qolo walba in ma garanaysaa meeqaamkay ku habooyin la geeyo insha Allah bismillaah kareem wuxuu noogu dhamaan doonaa guul kale kubaddu waa barcad iyo barmadow waa la kala badiyaa waxaanu ugu talagalnay in kubaddu inay isbarasho iyo isdhexgal iyo inay dhalinyaradu kula dagaalamaan tahriibka iyo muqaadaraadka iyo qabyaaladda iyo waxyaalaha dhaqankeena wanaagsaneyn ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mira Maxamed oo garoonka Xaaji Daahir Stadium kula hadlay kooxihii kala duwan ee ka soo qayb galay koobka ayaa waxa uu sheegay siyaasadda nimanka dawladda cusub inay meel walba oo dhalinyaro joogto loogu tago lana dhiirigeliyo insha Allah qaybtii hore dhamaatay baanu nimi ciyaarta waa final wareegyada dambena markay idin bilaabmaan finalka ugu dambeeya waanu ka soo qayb galaynaa waanu diimanaynaa waxa la doonayaa sportsku inuu noqdo laf dhabarta isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliland oo dhan hadii la yiraahdo meel walba waxaan doonaynaa in wasaa dhalinyaradeenna ay isku wada garab taagno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ay ilaa imika ku socoto ciyaartu Hussein Ati Jama Hussein Gafni telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal